taliyaha ciidamada Sudan General Abdi Fattah al-Burhan ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo inay Militeriga la wareegaan gacan ku haynta caasimadda dalka Sudan ee Khartoum tan oo noqonaysa guushii ugu sareysay oo Militerigu ka gaaro dagaalkii muddada 2 sano socday kadib markii weerar aan horey loo aragay ciidanka Militeriga Sudan oo adeegsanaya hubka culus iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay burburiyeen hubkii gaadiidkii iyo saldhigyadii ugu muhiimsanaa ee ciidanka RSF ay ku lahaayeen gudaha Khartoum kuwaas oo xataa loo diiday inay ka baxaan Khartoum iyagoo ku dhawaaqista guusha dagaalka ay dhici karto marka la soo gabagabeeyo howlgallada ay Militeriga ku nadiifinayaan xarunta madaxtooyada Sudan oo ku taala magaalada Khartoum iyo saldhigyada ay bartamaha Khartoum ku leeyihiin ciidanka RSF diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga soo saaro iyo kuwa Iiraan iyo Shiinaha ay soo saareen ayaa dhammaantood duqeynka wada hawada Khartoum si ay u burburiyaan dhaqdhaqaaq kasta oo RSF ay ka sameynayaan Khartoum oo kumanaan askari oo Militeriga ka tirsan ay howlgalka wadaan Israil oo muuqata inaysan dhag jalaq u siinayn hadallada ka imaanaya wadamada dhexdhexaadinta ka ah xabad joojinta qasa ayaa duqeymo aan kala joogsi lahayn ka wada marinka qasa waxaana sii badanaya khasaaraha dhimasho iyo dhaawac waxaana lagu soo waramayaa inay dhimashadu kor u dhaaftay 710 qof halka ay dhaawacmeen dad gaaraya 900 oo qof oo 70 kamid ah ay qarka u saaran yihiin inay geeriyoodaan dadka dhaawacyada halista ah qaba ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen duqeymihii soo bilowday talaadadii la soo dhaafay kuwaas oo Israil si aan kala joogsi lahayn ay uga waday marinka qasa sidaas waxa warbaahinta u sheegay Kale al-Dagran oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee marinka qasa waxa kale oo uu sheegay daqiiqadii qof dhaawaca inuu u geeriyoonayo daryeel la'aan kadib markii Israil ay burburiyeen goobihii daawooyinka iyo agabka caafimaad ee Isbitaalada qasa Ra'iisul Wasaaraha Iyo Aby Ahmed ayaa maanta cadeeyay inaysan Itoobiya qorshaha ugu jirin inay duulaan ku qaado Militeriga si ay u gaarto badda cas isagoo markaa tilmaamay qorshe kasta oo Itoobiya badda ay ku gaarayso inay ku raadin doonto hab nabad ah oo ay ugu soo horeeyaan biyaha Soomaaliya iyo Militeriga midkoodna qorshaha nooguma jirto inaan ku gaarno hab dagaal ah laakiin waxaan ku gaari doonaa hab nabadeed Aby Ahmed ayaa sidoo kale soo hadal qaaday colaadda gobolka Tigreega oo sheegay in lagu xalin doono hab nabadeed dagaal dambana aan lagu qaadi doonin gobolka marka uu xaqiijiyay inay ka go'an tahay dhaqangelinta heshiiska Pretoria iyo in maamul loo dhiso gobolka Tigreeg madaxweynaha dalka bartamaha Afrika ku yaalo ee DR Congo Felix Tshisekedi ayaa u soo bandhigay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump inuu qaato macdanta dalkiisa uu hodanka ku yahay taas bedelkeedana uu ku caawiyo ama u soo diro ciidamo ka saara Congo kooxda M23 ee u dagaalanta xuquuqda bulshada Tutsiga sida uu ku waramay wargeyska Wall Street Journal Trump ayaa la sheegay inuu ku qanacsan yahay heshiiska xiriirka macdanta inuu ka helo DR Congo asagoo dhawaan u diri doona erga ka socota si wada xaajood ay ula yeeshaan madaxweynaha Congo oo doonaya in kaligiis kursigaas lagu ilaaliyo Jarmalka ayaa ku wargeliyay muwadiniintiisa inay taxadar ka muujiyaan socdaalka ay ku tagayaan dalka Maraykanka oo aysan ku filnayn inay haystaan fiisaha dalku galka Maraykanka xilli walbana laga soo celin karo garoomada diyaaradaha kadib markii dhawaan muwadiniin Jarmal ah laga soo celiyay Maraykanka sida uu ku waramayo la taliyaha dhanka socdaalka oo ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalka Maraykanka ayaa hadda si joogto ah uga celinaya garoomadiisa muwadiniinta dalalka Yurub sababta ayaana lagu sheegay qaar ka mid ah dadkaasi in laga helay teleefanadooda inay horey u aflagaadiyeen ama wax uga sheegeen madaxweyne Trump ayaa hadda u muuqda mid Maraykanka gelinaya go'doon wuxuuna wadaa sida muuqata isbedel dhulkiisa ugu rogayo ama uu gelinayo go'doon dadka ugu badan ee arrinkan uu saameyn doono ayaana ah muwadiniinta reer Yurub